يا كومادو ogaadeenoo yaa daaroday maxaad u leedihiin dulmiyaad u bariirteen aad ugu sameeyeen dadka dhintana ama habar gidir ha ahaado ama baagir ha ahaado adinka mas'uulka ah hadii sharci jirana dhamaantood waa la idin ka rabaa yaa qoomi waxba ka soo bixi maayaan kulmado waxba ka soo bixi maayaan yaa ogaadeenay waxba ka soo bixi maayaan qofkii dagaalna ninkii galaa ku dhintaaliya hadii Soomaaliya dad ka yimid oo gurceel iyo dhuusamareeb ka yimaadeen meeshay ku dhima lahaayeen lix nin aan nooga dhimatay lixduba shilaaba iyo laba bar dhacday ku dhasheen mid ay yiri ilaa waa tukado waa iga dhab nabadgelyadaas daacad ay naga ahayd laakiin waxaad leenahay walaalaha baagari fara u laamnay inaan baagari nabadda ay sirrabin oo dhibaatada ayagu ay maaragta falkiyeen oo mas'uuliyadda dhacdadan ayagu iska leeyihiin oo dadkii dhintay ay iyaga dushooda ay tahay oo deegaanka wixii dhib ay maaragta mas'uuliyaddeeda qaadayaan alxamdulillahi wa thanaa lillahi wa salaatu wa salaamun ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam awalan ilaaha baa mahad iska leh mar labaad waxaan rabaa inaan halkan ka salaamo dadka islaamka ah gaar ahaan dadka Soomaaliyeed si qaas ah dadka dawlad deegaanka Soomaalida qaas ahaan gobolka Qorraxay iyo degmada Shilaabo santarka Lababaar bulshada dhammaan intaas degan waxaan rabaa inaan ku salaamo salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh bacda salaam halkan waxaan rabaa inaan ka soo jeediyo baaq nabadeed iyo tacsi horta waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun intii dhimata Allah u naxariisto dadka walaalaha oo dirirtu ku dhex martay degmada Shilaabo iyo santarka Lababaar dhulka u dhaxeeya oo dhimashada iyo dhaawacuba ka dhasheen intii dhimata Ilaahay ha u naxariisto dhan walbaba ha ahaato intii dhaawacana Ilaahay ha u boogadhayo tacsida waxaan rabaa inaan intaas uga gudbo waxaan rabaa inaan halkan baaq nabadeed ka diro una diro dadka nimanka la yiraahdo bahgari oo deriska aan nahay habar gidir iyo bahgari waa deris ilaahay intii qiyaamo ka dhacana la kala dhamaama asaas deris loo ahaana in dhibaato la falkiyana waxba dana kuma jiraan waxaan ugu baaqaynaa nabad waxaan ugu baaqaynaa wixii dhici lahaa waa dhaceen waxaan leenahay calaad wiil ku dhintay wiil kuma dhasho reeru waa barwaaqaysan yihiin barinkay joogaan maanta waxay u baahan yihiin talo iyo nabad ay u baahan yihiin saaka waxa weeye looma baahna in dhib la falkiyo ayaga saasaan ugu baaqaynaa dadka islaamka oo dawlad deegaanka maamulka dawlad deegaanka oo ugu horeeya Mustafa Cagjar iyo mas'uuliyiinta ka hooseyda ilaa iyo heer gobol heer degmo dhamaantoodna waxaan leenahay dadka walaalaha ah oo islaamka ah oo shacabka ah oo dhibaatadu ka dhacday in la xakameeyo nabadgelyadooda laga shaqeeyo la dhex galo cidii kiiska iskala kiiskeeda la saaro fidna wadaha laga qabto ay nabadu ka urdilaadahay ayaga saasaan ugu baaqaynaa dadka kale deriska ah oo habar gidir iyo baagari la deriska ah oo walaalaha ah oo ama dhinac walba jireen ama ogaadeenaadeen ama dhan kale ha jireen ayagana waxaan ugu baaqaynaa fidnada halkaas ka jirta walaalayaal soo farageliya ha ku soo faragelinina dhibaato nabadgelyo ku soo farageliya qof waliba huba adduunyadiisa iyo aakhiradiisa wax anfaca ha ku soo farageliyo oo aslaaxa ka shaqeeyo qofkii raba inuu fidna ka shaqeeyana ha ka joogo ku faa'iido uma dadkana intaasaan leenahay waxaan rabnaa deegaanka waa la isla degan yahay aflagaada waxba ma tarto habar gidir iyo baagari waa deris in badanna deris ay ahaayeen wayna is yaqaanaan waxa ka dhaxayda waa dad reer Qorraxay waa dad ma taqaanaa degmada Shilaabo ka dhaxayda habar gidir baa ku xaqirnaad ayadoo saasa oo habar gidir ay ku xaqiran tahay oo deegaanka la wada dego oo cid meel gaar ah oo ma taqaanaa waxay ku soo degay ama Ilaahay markuu dhulka fidiyay oo ku milkiyay aysan jirin habar gidirna ay dhulka degan tahay bahgarina ay degan tahay isriixriixa dhulka iyo dadka Soomaaliyeed oo deriska meel walba deriska yihiin isriixriixa ka dhex jiro oo waliba habar gidir wax ka maqan yihiin oo islaana maanta waxba ka maqan oo bahgari xaqooda jira ama dhul ha ahaato ama siyaasad ahaan iyo xagga degmada matalaadeeda ha noqotee waxaan isleenahay dhibka maanta taagan walaalaha bahgariya ka mas'uula inaan ummadda u sheegnaa rabnaa walaalayaal waxaan leenahay gacmaha kala baxa
وان سببينا مرة انت هذا اللي رأينا كهر وحي مسؤول وجيهين لبعتها كده دعدي هذا كار لماشي كده دعدي تطبقوا في أواد ويسكجر لمتى أفر به جريه هاد صدقنا هبر جديره وقالنا بدأ دقمة الشلاب أن الله دقي وكغيب قالنا أنه ما رأيت هبر جدير يبه جري بقى معمولك كللك سراكيش عيدا ماذا يمامولك قبل كقرحي قبر الدهر يكن دقمة الشلاب أي أسوق كأنك كاني وين وضع هذا السيين وحن كويشين معمولك يدماني يدك إسلام كأننا نلقوا جايين إن قالوا ولا هو بحقي شرعي بحذو أنا waxaan loo diray afar nin oo baagari ah baagarina waxa loo diray saddex habar gidira waqtina waa loo qabtay degmada Shilaabaan isku nimid annagoo wadna ballankii waqtigii aan ku nimid annagu waxaan wadna afarteen ayaguna saddexdii waa noo keeneen amnigaana noo dhaxeeyay xooliyana loo kala wareejiyay dukumiintiyaalan kala qoran nabadgelyan ku ballan iyo mucaahadaan galan annaga habar gidira mid ay ilaa waa tukado waa iga dhab nabadgelyada daacada inaga ahayd laakiin waxaad leenahay walaalaha baagari fara u laamneed farti u laamneed waxay ahayd nabadgelyadii markii lagu ballamay oo degmadii Shilaabad ku soo kala tagnay oo maamulka waraaqana kala siiyay oo baagari guddi laga qabtay oo annaga habar gidirina guddina la ka qabtay oo inaan nabadgelyada lagu ballamay inaan dhaadhicno dadkii gaarsiina lagu ballamay annagu waa soo tagnay laba baaran shir ku qabanay waa ka soo tagnay balle daleelan shir ku qabanay maalintii aan nabadda ku soo kala saxiixana Shilaabo maalintii labaad annagoo shir ku hayna balle daleel col ay baagari hogaamiyeen niman baagari ay hogaamayaan balle daleel ay nagu soo weerareen waa annagoo isla nabadii ka shaqeynay ilaahay fadligi wax kuma dhiman dhaawaca meeshaas ka dhacay dagaalba kama dhicin oo ayaga uu dadka iska xabadeynayay waxna kuma dhiman way laabteen maalmo kadib waxay dileen intay soo laabteen bal daleel waxay ku dileen annagoo isla kulli wixii dhacdadii hadii nabadii la soo sicay amniguna waa kala xisaabtama ayaguna waa su'aal celinaya isla markiiba way soo laabteen maxamed mursal nuur dooray bal daleel ku dileen korkiisa waa nimanka nabadda ku soo ballan waan isku asbuuc gudahood maxamed dilkiisa dhibaa ka dhashay ayaga raga walaad ilaa 8 nina annagana ilaa 3 ku dhimatay inaan baagari nabadda ay sirrabin oo dhibaatada ayagu ay maaragta falkiyeen oo mas'uuliyadda dhacdadan ayagu iska leeyihiin oo dadkii dhintay ay iyaga dushooda ay tahay oo deegaanka wixii dhib ay maaragta mas'uuliyaddeeda qaadayaan saasa u daliila waxaan leenahay dadkii dhibaatada saasaad markii ay dhacday ilaa 4 bilood gogol nabadeedna maana dhigan iskumaana soo laabo amniguna iskuguma kaana yeelin xabadeena waa hakad annagoo isla gogolii nabadda la galaa oo amniguna maamulkuna la hadlayaan oo leeyahay goglaa la dhiga oo waa la xisaabtama oo nabadii wixii ka halaaba la xalina mar labaad baagari waa soo laabteen waxay yimaadeen bal daleel bila daahiro gurigiisa joogo nan miskiin ay ku dileen dhibkan damba haddana ka dhacay waa mar labaad oo ayagu ay soo laabteen oo dhibaatadii falkinayaan dhibkan dambe saasoo uga dhaca markay fiidkii dileen miidiya inta tageen ay waxay dhahaan argagixisada kii ugu weynaa habar gidiraan soo dilay waxaa dilaheed in qof islaama oo gurigiisa jooga oo miskiina oo xoolihiisa dhex jooga in la dilo xaaraan ay ahayd misna iyadoo qabiil inta miidiya la istaago gaalkii ugu weynaa ummadda meesha deganaan soo dilnay dil labaad ay noqotay dadkii la dhasho dhalinyarada ahay oo bilo walaalihiis ahay waa kuwa inta tagay dhibaatadan ayaga iyo qolada kale meel joog ay dhex martay dhibka saas ay u falkiyeen hadeerna yaa qoomiyay dhaheen annaga waxaan leenahay baagariyay nabadaan kugu baaqayna maalintii hore axad isla gal waad nooga baxdeen waad nagu soo weerarteen mar labaad weerar kala keenteen ninaad ku disheen waad ku gubateen kumaana qaboobina finnadana way hurdaa cidii kicidaana nacladeedii dhibkeeda iyo maaragtay iskale waxaan leenahay warbaagariyay dhibka joojiye habar gidir inta tirtirtaan oo dhulkay degan yahay laga tirtiro reer ku dhaqi maydaan caanana ku luna maydaan biyana ka cabi maydaan adinkana habar gidir inta idin tirtirto dhulkiina waa sidoo kale dadku waa dad islaama waxaan leenahay nabadda u soo jeesta fidnadana joojiya gacmaha idinku dhex jira oo nabadda ogolayn
oo waxaan shilaabo uga ballanay jabiyey oo hadda idinku dhex jira oo danaha kala leh hoos u fiirsha ayaga idin gubay habargidir idinma gubinay idinka saas aan kula talinayna dadka waxaan u sheegaynaa meel walba goglaha loo dhigaa oo la leeyahay waana la laayay dad islaamaha nahay afkii habargidirta dawlad deegaankan ku hadlaynaa annaga xal ka bixinay annaga hadeer diyaar u ah ilaahay baa nagu og ilaaha nooga marqaatiya dawladda nooga marqaatiya shacabkii gogasha jooga shilaabooda waxa weeye aan baagiri iyo habargidir ahayn aan nooga marqaatiya nabadgelyan diyaar u ahay hadeeran diyaar u qoon tirtiri karana male qolo ka adagna male waxaan leenahay nabadda loo soo jeesto hadalka argagaxisaa timid Soomaaliya la kaga soo duulay meel hebla laga yimid waa war baadilo cad wax ka jirana male ummadda horteeda ay dhageysaneen nin weyn aan ahay qof islaam aan ahay wax ka jirana male argagixisa habargidirna ma jirto argagixiso deegaantaana soo dhaxmarta ama soo dhaxmari kartaa ma jirto waa kadaa'ib misna dad Soomaaliya gurceel iyo ka yimid dhul samareebana dilay dhaha ay ummadda u sheegaan waxaas waxba kama jiraan waxa u daliila shilaabo marka ku soo shiina kadib dad badan meesha ku leeday qayb annaga inaga dhimatay qaybna baagiriga ka dhimatay dagaalna ninkii galaa ku dhintaaliya haddii Soomaaliya dad ka yimid oo gurceel iyo dhul samareeb ka yimaadeen meeshay ku dhima lahaayeen 6 nin nooga dhimatay 6duba shilaabo iyo laba bar dhexdooda ku dhasheen waxa yaqaan ciidanka waxa yaqaan mas'uuliyiinta maamulada waxa yaqaan baagiri wixii qoori xaral oo ilaahay yaqaan waxa ilaahay aqoonsay rabaan ha hadleen inta dhimatay waa intii guryahooda joogto dadkii deegaanka ay muwaadiniinta ay oo canshuur bixiyayaasha ah wiilasha dhintay canshuurtii laga qaado maamulka degmadu ka qaaday waraaqooda jeebka ku jira markay dilayeen ayagu waa ogayeen maamulkuna waa ogayeen kulligoodna magacooda nin qarsoon male dagaalna ninkii galaa ku dhintay Soomaaliya laga soo gudbo waxaas waxba kama jiraan waa wiilal deegaanka waa wiilal ku dhashay shilaabo iyo laba baar dhexdooda waa wiilal dadka degmada shilaabood gobolka Qorraxay ka tirsanay waa dad ay ku xad gudbeen oo inaan dhiigooda ay daadiyaan aysan u banaanayn oo ku dambaabeen ayaga annaga naga dhintay iyo wixii baagari ka dhintay wiilal sharaf la aan leenahay wax annagu aan leen hebel oo aflagaadaynay intabana waxa mas'uul ka ah ahad xumada iyo ballankii iyo mucaahadadii aan galnay waa niman ka jabshay oo baagari la yiraa oo hadda dhibaatada la taagan waray dhibaato cid kama adkee nabad u soo jeesta nabadan gogol nabadeed annagu fidayna aan wada hadalno wixii halaabi laha waa halaabeen haddeer meel laga qaba kara joogtaa hadday sii socoto waxay dhali doontaa dadkoo dhamaada xaalada sharciyan waxa lagu tilmaamaa xaaliqo waxay ka tagta male dadka way dhamaydaa diinta way dhamaydaa xooluhu waa dhamaadaan dhamaan way dhamaadaan wax waliba dadka in dhimata oo ayagoo qaatil iyo maqtuul isdila inta dhinta cadaab gala iyo kuwa badan oo ognaho wax garad lagu tilmaamaa colaada abaabulo intay dhintaan ciqaab uga dhiman tahay ay dhali doontaa annagu waxaan leenahay la soo dhawaado dhibka hal la joojiyo yaa qoomi waxba ka soo bixi maayaan kulmada waxba ka soo bixi maayaan yaa ogaadeenay waxba ka soo bixi maayaan qofkii islaam oo walaala oo mataqaana warkaas maqla oo dhibaatadaas maqlay iyo safina uga qayb qaadane xal ha uga qayb qaato annagu xalan diyaar u nahay habargidirana la yiraa inaan xaltanaan rabnaa inaan maaragtay magaciiseynaan rabnaa baagari waxaan leenahay waa dhaqanteen ma balaayeysnay inta dhimatay in kale yaan lagu darin annaga ha naga dilinina dadka adinkuna iska dilinina ka joogay nabadda magaciisiyay baagari adinka xaqiina wax jiraan degmada shilaabo 4 qabiil ay ka dhacayda Muuse Gumcadle iyo baagari iyo Mareexaan iyo habargidir iskala degmada miisaan ahaan Mareexaan iyo nimanka la yiraahdo habargidir waa ku dulmayeen waad ogtiin darisaana noo markii degmada wajahadahan la yiraahdo baagari iyo habargidir daris ay ahaayeen adinkaan ugu dhibaatay matalaadan degmada ku lahayn markii 4 loo qaybiyo dadkiina maamulka ku fadhiya waan ognaa wax xuquuq naga maqan ma haysano inaan in kala xisaabtanaa rabno adinkoo matalaadanadi ku fadhiya oo wixii soo baxa oo mashaariica oo horumarina oo caafimaad oo waxbarasho oo dadkaan iska laha ku fadhiya oo bila xuquuq aan nahay canshuurtana maamulku naga qaado yiraahdo insha Allah wixii in ka maqan anaga idin keenayna sanad walba oo yiraahdo inaad dib kaliya dil kale ku tartaan sax ma ahana barwaaqad haysataan waxa weeye
nina wuxuu yiri horta hore balaayoy nin barwaaqo haysto ku baaqahay waa nacas haddaad baaqa weydana kii kan ku bereerin oo ka baqdaa waa doqon war adinka haysta wax badan hadday dhul tahay hadday matalaadii degmada taan ku lahayn hadday xuquuqdii aan lahayn ay tahay wax badan aad haysataan jeebkuna waa idin buuxa xaqiinaana wax u fiireyna inaad xabad ku dartaan xal maaha waxayna tagay in dhiiluhu daataan haddaad xabad ku dartaan waxaan leenahay annaga nabadaan ku baaqaynaa col ku baaqi mayno dad islaam ahaan nahay axdigii waa nagu jabideen axdigu waa idin qabaa shilaabaan ku ballannay maalintaan ballanno nabadgelyada ku ballanno maalinta ku xigtaadna soo weerarteen wiilashiyaad kadib disheen qof walba gurigiisaad ku dilaydaan lama rabo xashu geela waana cune waana cabaada inaad noqotaan war inta soo tagteen aad dadkii dishan annagoo nabad ku ballannay yaa kuumadow ogaadeenow yaa daaroday maxaad u leedihiin dulmiyaad u bereerteen aad nagu samaydeen dadka dhintana ama habar gidir ha ahaado ama baagari ha ahaado adinka mas'uulka ah haddii sharci jirana dhammaantood waa laydinka rabaa gogolna aan iskugu nimaano aan wada hadalno amni iyo maamul iyo dowladda waxaan leeyahay sukaaya keena dadka islaamka caqliga u saaxiibkaana gogol iskugu kaana keena nana wada hadalsiyo cid walbana kiiskeeda hala saaro